Sheekh Cabdiraxmaan Dheer oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland ayaa khudbadii Jimcaha maanta ku soo qaatay xus dhowaan magaalada Hargeysa loogu sameeyay askar gaala ahayd oo ku dhimatay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana uu sheekhu sheegay inayna bannaanayn in la tago xabaalaha gaalada isla markaana ay xaaraan tahay in dad muslimiin kala qayb galaan nin gaalo dhintay wadan islaam lagu aasi karaa oo dadka waa laga qarinayaa qurunkiis meel u gaarana waa lagu aasi laakiin dal islaam dhexdii lama ogolo shariicadu ma ogola in maraasim iyo loo sameeyo ixtifaalaad gaalka dhintay shariicada islaamku ma ogola hadduu dhinto dhexdeena uu ku dhinto haddii eelkiisu joogaan waa loo dhiibi xabaalo gaara baa la odhan doonaa kuwaasoo xabaalaha islaamka lagu dhex aasi maayo laakiin loo ogolaan maayo inay shacaa'irtoodii halkudhagooda diiniga ay muujiyaan fi bilaad islaam ma banaano taas laa yajuus marka dhacdada markaa waxa weeye dadku aada isula dhex marayaan dad badani si aan sax ahayn bay u sheegayaan oo kiniisad ayaa la furay bay idhahdeen taasi wax dee jara ma aha oo waa beeno waaqaca innagu waynu joognaa waa ognahay laakiin dad gaala ah qubuurahood inay gaalo xaflad ku samaysay amaba dee ay baroordiiq u samaysay oo magaalada Hargeysa ay ka dhacday waa wax la wada ogyahay saxna ma aha shariicada islaamka kuma banaana dadka muslimiinta inay kala qayb galaan ma banaana oo ay u raacaan oo ay kala qayb galaan waxa weeye yaana baroordiiq ma ku sheegaan ama xaflada ku sheegaan ama ducaa ku sheegaan ma banaana maxaa yeelay cilaaqo diini nimanka inaga ma dhaxayso wa aduullah wa aduu rasuulih idali rasuul cadowga inagana waa inoo cado yaana waxana wax dunya ama waa arin diini ah taasina ma banaana marka walaalayaal waa arin qaldan waxaana fiican qofka muslimka inuu diintiisa ilaashado inuu ogaado cizigiisu inuu ku jiro shariicada islaamka iyo diinta ilaahay oo uu raaco ilaahay ummad muslimiina buu inaga dhigay dawladeenu waa dawlad muslim ah waa dawlad islaam ah madaxdeenu waa muslimiin waxa weeye inaguna shacab muslimiina baynu nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nicmo uu nasiiyay oo dalal badan aanay haysan dalal badan oo dunidii aanay haysan amaan iyo nabad buu ilaahay nasiiyay waa nicmo ilaahay uu nasiiyay hadaynu diintiisa ku tumanno ilaahay nicmadiisa uu la noqonaya subxaanahu wa tacaala maxay ilaahay wuxuu la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid sidaa daraadeed gaaladu axkaam bay sharcigu siiyay u gaara muslimiintana axkaam baa la siiyey in la isku qaldaana waa waxa ilaahay iyo rasuulkiisuba ay noo diideen subxaanahu wa tacaala marka taasi waa taa wax bannaan ma aha oo maaragtay shariicada islaamka dhexdeeda ku bannaan ma aha in qofka muslimkii isagoo arrimo kale eegaya ama ahdaaf kale iyo hawooyin kale ay ku jiraan inuu shariicadii burburiyo ama shariicadii uu ku tuntay isaga lafdigiisu isagoo isla wax sheeg oo wax wanaaji iyaduna taasna mid bannaan maaha dad badan baa ka sii badbadiyey ama waxyaalo badan oo dee aan sax ahayn sheegay qaarkood waxay ka sheegeen manaabirta hargeysayin kiniisadaha iyo masaajidadu isku mid yihiin dee maynaan aragna u taha sakadaynu ka laabnaba waxa ku yaala 40 masjid 20 masjid 30 masjid dee sakadu loo makiinad baa ku taala waa arin qaldan ninka wadaad sheeganaya waxa ku hadlaya waxa iska leh intuu iska xamaasado iska qiiroodo isaguna shariicada islaamka waxa weeye waxaanay ogoleen buu ku dhawaaqay oo dee beenta ugu yar waxa marka hadalkiisa ku jira been baa ugu yar talabaad iftiraa iyo been abuurad iyo daddan oo muslimiina oo qiyamkoodii iyo akhlaaqiyadkoodii meel kaga dhacay ayay noqonaysaa marka labada qolo midnaba inagu waxa weeye marka waa u naseexaynana kuwa tagayna waxaan leenahay iska daayay mar dambe ku noqonay imkana ka toobad keenay ilaahayna ka baqa subxaanahu wa tacaala mana banaana in maxaafisha noocaasi laga dhex oogo bilaad islaam kuwa iyagu sida qaldan aqeedada faasidka ku jirto sida qaldan waxa weeye sharciga marka baalmarsan uga hadlayana waxaan leenahay ilaahay iyo rasuulkiisu waxay ka sheegeen wax ka duwan qofkii ka sheegay isaguna uu qaldan yahay xamse khadar maxamed xamse xadaari gobonimo TV Hargeysa.